السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لما واحد نوجا برتان إن نسوي تبينه وراك سبورتك قاعد هان وراك ورا ضدي سنين قدام بعيد إن تضبط كان أم بوشلة ما توش هذا الدعي شنو كان واحد وحسارين هاي لما أنا أرض ده إن سوماليا ملك السويجوغان إني كلا السودان أرض عالم كدعية يحكوا دعية يسوق بصومي ترتمدي جري يتعبرض أرض كسودين هذي يهين حق هواك حق ركض ما تدبه maanta waxaan ka hadalnaa idilaba maanta waxaan hadi doonaa in ordo ugu dambeeyay shalay toole qabsoomay oo xadahayd shalay waxa qabsoomay ordo aad u fiicnaa la oran karayo ordadii ugu wanaagsanaa section kan sanadkan 2026ka waxaan isoo tabinay walaalkii Xamse Cusmaan shalay ka daawaysay waa Jibran dhamaantiin waxaan niga aad ugu dhiiri gelisaan in insha Allah in wallahi iyo subscribe ka sartaan meel la gaarsiiyo sanadka si aad ula socotaan wixii ordo jira caalamka oo dhameystiran annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaan isoo tabino wixii ordo jira caalamka oo dhan meel kasta oo ahaado waxa weey orodkii ugu dambeeyay hadaan ka hadalno maanta waxa qabsoomay Allahu musta'an orto waa bil barakaysan waqti ugu dambeeyay waa tobanka ugu dambeeyay rabadaanka aad iyo aad baan u jecelahay waana tobankii cisho ugu dambeeyay إن إلهي نجرسيو حقه إلهي نجرسيو إن إلهي نفض دي قرآن كخيس كيسيو صلاة العبادات كيسيو وحنا كتير ما تكلوا ومالك إن ليه تخدر كا إن تلوين كده منا والنبي نصوبنا عليه الصلاة والسلام ونشيء إن كده لما تيجي من كسر جوكتر وحاوي أردكي وحنا كان الدنا دور أرد من كان الدنا إن شاء الله هدو إلى يدمو إن أردكي وجود في أحد الدعي إن شاء الله توله waxa dhacay in Lisbon half marathon ma dhacay oo dalka Portugal ka dhacay orodkaas waxa orod aad iyo aad u sugiyay orodkaasi wuxuu ahaa orodkii marti galiyay world record world record ka maanta waxa ku guuleystay Jacob Kilimu oo dhashay dalka Uganda horena aan uga sii hadlay inuu world record ka lahaa markii hore oo u diideen world athleticism problem in haga inuu distance ka hawada iyo waxaas uu ka qabanayay gaari hor socday markuu jabinay world record-ka wuxuu jabiyay 16kii bishii 2025 markaas wuxuu ku orday 6:45 daqiiqo buu ku orday hafaartankaas musuugta gelin in la yiraahdo hafaartanka adiga leh way sugtoo weydii waxa loo cadeeyay hafaartanka inuu sugulayn oo si haysto kajeshi oo u dhashay dalka Ethiopia wuxuuna ku orday kajeshi 7:30 hasaate shalay toorka dhacay waadana ay ka dhacay waadana aad iyo aad weyn ba ka dhacay waxa uu ku orday Jacob Kilimu 7:20 sekin halku ka haystay 7:21 sekin 12 sekin baa u dhaxeeya Jacob Kilimu iyo Kajeshi markaas world record-kii waa iska cadi inuu isagu hadda haysto saacada ugu fiican isaga haysta saacada imika labaadna world record-ka loo cadeyn doono isaga iska haysta Jacob Kilimu waa nin daadiisa la yiraahdo 25 jir waxa uu dhashay dalka Uganda waxa uu ninkaasi world cross-ka waa ninka ugu fiican labada sano ugu dambeysay iska daba badiyay wuxuu leeyahay 15 kilo 40 uu leeyahay 40 marathonka laba jeer boorday saacadiisa ugu fiican marathonka wuxuu leeyahay 2 saac iyo 2 daqiiqo wuxuuna orday bishii October 12 October 2025 boorday Jacob Kilimu waa nin aad iyo aad xawaariisu fiican yihiin Tokyo wuxuu orday 10 meterka 10,000 pistiga wuxuu ku orday 6:23 sekin buu ku orday half marathonkiisa maanta world record ku cadeystaan oo half marathon aad iyo aad ugu weyn xiisa gaarayo laha waxa kaloo half marathonkaas Jacob Kilimu oo saa ugu firday waxa ku jiray halyeegi Djibouti aha وهذه ساشيك دونو وهذه أسيو نقول كريا فتح اسماعيل إبراهيم وكترسن أرضي أنا ذي جبت كفيان وكوردي سجالي كتشني أفرت السكين أو سفيان بورد مات وهلية كرويان وأرضي هند الصومالي ذا أرضي هند جبوتي وأرضي هند جبوتي ماتا إن هذا ينقطع بيستي هذا ينقطع ديكت باللغة ده بكسو جوابية waxaan oran karayaa inuu ku ordi kari lahaa fataax 7:50 ilaa 8:50 qiyaas ahaan laakiin labada cisho ugu dambeysay
intuuna u bixin orodka u tegin cilad flightka dirtii ah laba cisho ku dhow ka soo noqday airportka problem xagga diyaaradda ah isagoo caawa soo galay ayuu subaxnimadii haddana orday subax isagoo orday baa haddana ku orday 59:45 world national record waddanka uu jebin lahaa haddii uu waqtigaa kasii horeyn lahaa laba cisho amba hal maalin kasii horeyn lahaa laakiin sooradka waxay noqonaysaa qof taraag kusoo jiray jidna soo maray 8 saac qiyaas diyaarad saarna oo haddana subaxii tartanka ka qayb galay recuperation ma helin baan malinayaa fara badan waxaan leeyahay hambaliyo halkaa abaata waa dadaashay dadaalkaagaas u muuqda insha allah waxaan rajeynaynaa ordayaanada reer Djibouti dhammaantood iyo ardayda Soomaaliyeed inay ku daydaan waa si fiican buu orday kaalinta shanaad walaas ku baxay kaalinta labaad orodka waxaa baxay ahayd Kipkorir oo ah Kenyaati wuxuuna ku orday ahayd 58:08 58:08 Kiprutis baa sagna ku xigay oo 8:9 ku orday halka uu ka baxay kaalinta afraad lagaad kaalinta shanaadna waxaa baxay ahayd aad iyo aad baan Fataax Ismaaciil Ibrahim ku hambalyeynayna tartankii orodka sidaad orday sida quruxda badneed orday guushaadaas waxaan rajeynaynaa waliba nasharka Kenya jibisid cilada safarka awgeed baa laga yaabaa inay ka naaqustay inaad si fiican oo taaka si fiican ku ordid waana dadaashay dadaalkaagaas waa muuqda jiro joog baan ku leenahay waxa haddaan ka gudubno hafaaratanka Lipson oo u wareegno half marathon Bashir Ronis ee dalka dhacay Belgium Bashir oo ah ordiyahan Soomaaliyeed oo u dhashay Soomaalida Ethiopia ahna ordiyahan aad iyo aad u fiican xagga ordada haddana u orda dalka Belgium waxa uu maanta sameeyay national recordkii Belgium oo markii hore soo iska lahaa 59 daqiiqo ayuu iska lahaa wuxuu sameeyay 2023 hadda ayuu sii jibiyay oo wuxuu ku orday 59:28 البرسي بشير عبدي ونشر ريكورد سجى هستا هاف ماراثون كودكاس إيو ماراثون كبسجى هستا يوروبيانكا وردي هنادي دفعان أرد كمان تبشير عن سبارة أرد كسجى سبونسور كا سجى طبعا قلبي سجى بلابي وردي هنا بدن عالم كا هيا كسوق بقرا دمانتو است أرد كدحديسة هدان كهذا الله أرد كدحديسة واحد أردي أي فرح أي أو 8 كيلو أردي كل جوليستي كالنت كوباد وحلي congratulation مانتا ريتشبوتي ما كستيجولا وحضر كيس فتاح وكالنت كوباد كصوب هاي كالنت سنة كصوب هاي عفارتك وشتى وفعلت كل شيء وأيو 8 كيلو هذا بحي كالنت كوباد ريتشبوتي هذا دوشقيا كالنت كوباد كيلو واحد بتاع 6 كيلو إن وحصلنا بحي عبد الساق حسن قري أو ويلون يراه ريتشبوتي بركي برجين هذا كله أدي بورد كاسي حيسا قارة ولها وأرد كمية سوماليدا وأرد كمية دنيا ريتشبوتي وأرد أدي ديري جرين موجينسا تقدم بيكو داين كرايا وحان أوران كرايا إن سبورتي ومانتا وميل لغاش غيسان كرايا وحان نقضي ماركتين بو نقضي qof kasta maanta saacad markuu ku ordo wuxuu sameyn karayaa inuu sponsor helo sponsorka inuu contract la yeesho inuu orod kasta uu tagayo hadduu saacad fiican leeyahay inuu invitation yeesho lacag lagu soo inviteeyo lacagta ku badiyo iska badaa invitationka qofku qaadanaya lacag iska fiican waxaan u rajeynayaa dhalinyarada iska fadhida inay sportiga ka rabaan sportigu waa mar waa caafimaad mar waa shaqo labadiiba uu galaya aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa halkaas waa saddex ordiyahan waa afar ordiyahan oo Soomaaliyeed waa Bashir waa Fataax waa Ay waa Cabdirasaaq intaas maanta guulihiisa hooyeen baan oran karayaa guulahaas waa guulo muuqda oo la arki karayo waxa aan kaloo halkan insha Allah aan ka hadli doonaa waxa jiray marathon Los Angeles maartakaasi maarta xiisa gaar abulaha sidii orodka ka dhacday civil marathon labadii Ethiopian ka hay isku jireen finishka ayay laba nin oo kale oo midna Kenyaati yahay midna Mareykan yahay finishti ay sida fardaha isku jiray fardaha waa iskale last finishkiiba muruq wala kala daatay halkaas waxay guush ku raacday ninkii u dhashay dalka Mareykanka Natamarta Michel Kamanu ayaa asagnaha kaalinta labaad oo Kenyaati waxa lagu orday laakiin saacada lagu orday waa 2 saac iyo 12 daqiiqo labadoodu waa isku saacad laakiin waxa kala galeen waa finishti waxa kala galeen waxa jiray half marathon kale oo ka dhacay dalka Paris dalka Faransiiska gaar ahaan Paris half marathon
باري هفارتها وحا لغو أرضي 11 هل ساعي كويتون البرقسي بقى لغو أرضي هل كان سوكو بدي نكا كينياتيغا وكمادي قمتاي كانت لما واحد بعد تيموتي مسوي سكنا كينيا سود أفريقيا أيها هاي كانت تستحق تومباك موساكو أيها كانت تستحق أرضاس والله أرضوها هاي أديات قيمة لها تستكاسي ترتبها أد ونكسنا سعادة أد بلسكو بدوي هاي إنكستو قارين ليسبون هاف ماراثون وحلورنيا ليسبون هاف ماراثون تاريخ حسيدون تاو مادامو لغو تشبيو وورد ريكورد أديات بان ندي رجلنا لمان دتك بحدا سبورك شعل وحني لي هي مركزتا iyo waqti kasta halka amaata joogta meel ka dheer si gaarsiiya insha Allah shanalka waxaan insha Allah orday wixii kale ku soo xigay insha Allah waan niisoo bandhigi doona orod kasta oo dhaca maalin kasta soo daba socdaan insha Allah waxaan rajeynaa guul waxaan ilaahay rabadan wanaagsan rabadan kariim insha Allah tobanka cisho ugu dambeysana cibaadada weynaad badisaan salaadka weynaad badisaan istighfaarta weynaad badisaan quraanka weynaad badisaan هذا معنا ونكسم بني رجيني لما تملك الصديق الداونسين وولك حمزة عثمان له عشان الكورتك جيب رنن إيش أبغى هاي دماتي خير بني رجيني مع السلامة إن شاء الله نولي كرنتين وأستجوبنا إن شاء الله بلا يدور